maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Ciidin ayaa maanta howlgal ballaaran oo ay dowladda hoose degmada Berbera ka waday xaafadda Fiilan ee magaalada Berbera. Xaafadaasi oo laga saarayo sirfay lagu banaynayo isla markaana dad xaafadaasi deganaa sharciyo kala duwan lagu siinayo ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan. Waxaanu sheegay in muddo dadkaasi ay dul deganaayeen 23 sano dhul aanay lahayn. Waxaanu xusay in dadka dhulkaasi leh iyo kuwa degan labaduba ay xaq leeyihiin isla markaana ay dowladda hoose labada qoloba siinaysa xaqooda. Isagoo arrintaasi ka hadlaya gudoomiyuhu waxa uu yidhi hawshan waxay ahayd dhul sharciyeysan oo dad lahaa oo dadkii lahaa iyagu ay ka maqnaayeen muddo 23 sanadood ay ka maqnaayeen dadkaasi dhulkooda ay ka maqnaayeen sharciyadana gacanta ku haysteen dhulkoodina ay dad kala degan yihiin muddo badan oo dheer oo dowladdu in badan isku dayday in dadka looga raro waxa ay keentay iska horimaad iyo dhibaatooyin fara badan gacan ka hadal baa ka yimi sida awgeed anaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo sakhiray inaanu kaga hawl galno si salmiya oo dadka damiirkooda iyo iimaankooda ay iyagu iskooda uga soo noqdeen dadkuna ay jeclaysteen inay muddo 23 sano ka bacdi ay xalaash u guuraan oo ay ka guuraan xaaraanta sida awgeed dadweynaha degan xaafadda Fiilan oo aad ugu mahadsan waxa ay garowsadeen nagana aqbaleen inteeda badan iyagu ay ka timi in ay wixii xaq dadku lahaayeen la siiyo iyaguna ay dowladda hoos joogaan oo wixii dhulka ka banaanaada ay 2 mitirna ha noqotay la dejiyo loo qaybiyo waxaan u ballan qaadaynaa maadaama iyagu iskood isu xilqaameen oo wax khasaba cagaf gedka gelayso xaqas aanay jirin in qof kastaaba meel muwaadin kastaaba meel uu deegaana ka siino. Xaafadda Fiilan ee magaalada Berbera ayaa muddo murankeedu ka taagnaa magaalada Berbera waana markii ugu horeysay ee howlgal noocan oo kala ah oo sirfay laga bilaabo xaafadaasi. Dadka ku dhaqan xaafadaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay sirfaygaasi kuna amaanay duqa degmada Berbera. Cabdikariim Saciid Saalax, Hon Cable TV, Berbera.